munaasabadani ayaa ahayd mid loo qabtay xidhitaanka tartanka qur'aanka kariimka ah kaasi oo maxadka boardingka ee taqwa ee degmada Qoryaale oo ka tirsan gobolka Togdheer u qabtay arday ka kala socotay malcaamadaha magaalooyinka Jaamac Liibaan, War Cibraan, Gabagabo, Dhagax Dheer, Warta Shacbi, Gaadle, Beeri-Eedda iyo Shashacadde. munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer, xildhibaano, cuqaal, waxgarad iyo marti sharaf kale. maamulaha maxadka taqwa ee degmada Qoryaale, Sheekh Jaamac Cali Cabdulle iyo xubno ka mid ah macallimiinta dowladani ayaa ka warramay ujeedooyinka laga lahaa tartankani qur'aanka kariimka ah. halkan waxaa lagu qabtay tartan quraan oo ay ka soo qayb galeen 9 magaalo iyo maxadka oo isaguna ka qayb galay. 9 magaalo waxay kala ahaayeen Dhagax Dheer iyo Shashacadde iyo War Cibraan, Beeri-Eedda, Jaamac Liibaan, Gaadlayaal, Qoryaale, Gabagabo iyo Warta Shacbi. waxaa lagu tartamayay 15 juz iyo 10 juz iyo 5 juz. waa markii ugu horeysay ee musaabaqa noocaas ah ee marka maxadku qabto ama aaganba marka lagu qabto. waa ilaahay mahadi weeye subxaanahu wa tacaala. intii aan wadnay lajnadu ay socotay codad aad iyo aad u fiican, qiraa'aat ma sha Allah mujawwada saxiixa xaqiiqatan ay maqleynay oo aan jecleen codadkaasi aan ku maqalno masaajidka Calimataan iyo masaajidka wasaaradda awqaaftaba. oo insha Allah waxaan rajaynayaa sanadka soo socda in insha Allah aragno ardayda xagga ku aragno bidna subhanahu wa ta'ala. waanu dhiiri gelinaynaa, waana runtii bogaadinaynaa in la sii dardargeliyo ardayda waxa weeyaan oo tartanada iyo musaabaqooyinka quraanka. a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قدوميها دقمة قريالي قدوميها جامعة تogdheer Sheekh Cabdibaasid Cabdinuur Xaaji Siciid iyo waxgarad kale oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay ka qaybgalayaasha tartankani iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay. Sheekh Jaamac oo soo abaabulay culimadii iyo cid kasta oo kala qayb qaadatay, cid kasta oo dhaqaalaha kala qayb qaadatay, cid kasta oo fikirka ku taageertayba iyagana Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xildhibaan Cabdilaahi oo isaguna masaajidka kale magaalada si wanaagsan u qalabeeyay oo goglay isna Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. musaabaqadani waa musaabaqadii ugu horeysay ee deegaanka laga qabto. 9 magaalo ka soo qayb galay. waxaan rajayn doonaa iyadoo badi magaalooyinku ay ka soo qayb galayaan. aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa lajnadii gacanta ku haysay iyo Sheekh Jaamac iyo degmada martigelisay ee Qoryaale iyo macadka martigeliyay macad taqwa. dhammaantiin baa Allah idin barakeeyo in quraanka runtii lagu tartamo, la nooleeyo, kor loo qaado. nolosheena ayaa ku tiirsan, horumarkeena ayaa ku jira. macadka runtii wuxuu waraabiyaa 9 imika ka qayb galay iyo 10 kale. farxad bay taa xaqiiqdii inaan ka qayb noqdo munaasabadan qiimaha badan. waana u ducaynayaa dadkii soo abaabulay oo ugu horeeyo Sheekh Jaamac iyo dadkii kala qayb qaatayba. ardayda ka soo qayb gashay tartanka iyo kuwa maaragtay maxay tahay eeganayaba oo rabo mustaqbalka inay ka soo qayb galaan iyagana maaragtay maxay tahay waan ku mahadinayaa. waa la wada guuleystay, guul baa ka dhacday. ardayda ka soo qayb gashay waa u guul, kaalin kastaba ha gale. macallimiintana waa u guul, magaalooyinka ka soo qayb galana waa guul, macadka diyaariyana waa u guul. waa dhiirigelin. kulligeen waxaan ugu dhiirigelinayaa musaabaqadan inay socoto oo macadka Qoryaale isaga uu sanad walba haddii Allah idmo wixii gaadha la qabto. musaabaqadan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka yeelo mid markaa waxa weeye sii socoto sii joogta. marka tusaale ayay u tahay dhulka intiisa kalena. Sheekh Jaamac si gaar ah ugu mahadnaqayaa, jazaahullahu khayran baan leeyahay. isaga ayaa fikirka keenay. fikirkiina iyo dadaalka la idingeliyay macallimiintu gelisay kor qaada. nin walba waxa weeye ogaataa wad qalbigaaga gelisaa sidii aad u noqon lahayd hogaamiye fiican oo diinta islaamka dadku hogaamiya. macallimiintaada iyo dadkaagan aad u anfici lahayd. maxadkan maanta aan joognay magaalada ka timina
aad u noqon lahayd mid hawsha macallimiintu haysa bartaa ka sii wada. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo, xildhibaan Cabdilaahi Yuusuf Axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland iyo xildhibaan Suldaan Jaabac Nuux oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco iyagoo la dardaarmay ka qaybgalayaasha tartankani. in 9 degmo iyo maxadkan ku tartamay 10 degmo ay ku tartameen Quraanka Kariimka ah 4 ka mid ah degmooyinka ku tartamayay ardayda halka ka baxday baa hogaaminaysa. taa macnaheedu waxa weeyaan maxadkan uu ballaadhay oo durtaba uu gaadhay tuulooyinkii. waxaan bogaadinayaa hambalyo u dirayaa 10 magaalo ee maanta halkan ku tartamaya tartanka Quraanka Kariimka ee 10 jis iyo 15 waxa guulow inay madashan maanta soo gaadhaan taasaa guula. waxaan insha Allah taala anagoo idin matala oo codkiina ku hadlayna iyo ganacsatada iyo waxgaradka deegaankan waxaanu ballan qaadaynaa anagoo isku tashan doona inay sanad walba socon doonto insha Allah taala. waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay musaabaqadan inay soo abaabusho wax wanaagsan ay qabateen sunno wanaagsan ay jideyseen. waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. musaabaqadan magaalooyinka kala duwan ee gobolka Togdheer ay isaga yimaadeen ama lagu maamusay ama lagu tartansiiyay macadka At-Taqwa. ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarino lacageed lagu guddoonsiiyey ardaydii ka qayb gashay tartankaasi. Cabdirashiid Timir, Home Cable TV, degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer.